بسم الله الرحمن الرحيم وسلامتي ميلا جوجتانبا وشوينتا ku dhaqan geega Soomaalida meel joogto aad baan salaam halkan ugu dirayaa inta kadib waxaan leeyahay haddaan ka hadlo dhowr qodob oo maanta ay hor yaalla koobkayga shaan soo qabsado waxaan leeyahay xaaladii ugu xumeed ayay wajahaysa siyaasadda geeska Afrika maanta markaan eegno dhinaca Soomaalida haddaan dhowr qodob taabto Soomaali waxa la doonayaa in Itoobiya la wareegto Soomaali maanta waxa la doonayaa in Itoobiya la wareegto arrin maado geega Somaliland waqooyi labadii sano u dambeysay waxa dalka Somaliland ka dhacay doorashadaas oo kala qaybisay dadka Soomaaliyeed ee ku noolaa gobolada Somaliland ee walaalaha ahaa labadii sano ugu dambeysay sixir bararka ugu xumaaya dalka ka dhacay labadii sano ugu dambeysay dagaalo beeleed ayaa dalka ka dhacay jabhada ayaa dalka ka dilaacay haddaba waa sidee hadda xaaladdu waxaan u sheegayaa bulshooyinka Somaliland dhalinyaro waayay maanta inaynu iska fadhino dalka looma baahna boqolkiiba 99.5 dhalinyaradu waa bilaa camal waxaan shaqeeya ee halkan jooga waa qabiil baa lagu geeyay shahaadada jaamacadda adigoo haysta examkii hay ku soo baxay oo dhibicii ugu sareeya haysta ayaa si doon xagga ugu hooseysa loo gelinaya maxaa sabab gobolada kale hadda deegtid Puntland Soomaaliya Kilinka Shanaad Djibouti Kenya waxa ka shaqeeya waa dhalinyaro professoro inagana odaysiga jira ayaa meel kasta haysta oo aan aqoon lahayn kelmad Ingiriisi aan qori karin maxaa sabab isleedahay مسبي عبد الحلال هل ميت بالله مدحونا مانت لقى ما فديين واحد المشاهد دلك نصوت العالمي واحد بدنا قرانية كان عم بحين دلك عياضي كمان فديين مانت دلك وحنا نغنية شوف هذاك الدلاعية بل يردوا بلا عمل بين غنا ساعة يسوي تناس يحل بلقى فديين ما أنت لقى ما فدين إن عاد سيدان كل غميس مدحونا وحنا الشقية تصدق سنة أكو هراي كوسي لكم وارث دم كلها لكن شرفك يا كرام منيهين ضد سقق بصدام مانت ملك استوحى نجحي عدو بنجحي وعلو باهي سي عدل كان شو التناس ويحلو يوناك arrinkan ugu dhamaan haday tahay dhinaca doorashooyinka dhinaca dhalinyarada dhinaca xisbiyada dhinaca xilalka dhinaca dhalinyarada bila shaqada ah maanta heernimo aan ku wacnaan maayo xilkaaga aad ka waay musabbiix waa saad musaan mali saad musu waa badin baan leeyahay waxun wax wanaagsan buu leeyahay heer kastana waxun wax wanaagsan buu leeyahay ee waxaan ku leeyahay madaxweyne kagamaanaan fadhiin maanta adigoo mushahid dalka soo dagaalamay wax badan dalka joogay hawsha noocan walkuwan ku siiyay maranaya kulli waxaan leeyahay halkaas ay gala socon doontaan fariimeyga ka soo dhiibi doona maalmaha soo socda madaxweynuhu hadduu sideen wax ka bedeli waayo deewaanu wax la sameeyo garanaaye looneega inuu sideen wax ka bedelo isku shaandeen baad sameysay madaxweyne labadeena irin baa isku bedeshay leeyahay fadhiinteestan dhalinyarada inaad magacooda anagu modayaal baan ku isku bedel waa mayade siyaasadda dalku xaalad xun bay ku jaawaarsan tahay baan ku leeyahay xaaladda wax ka bedel sida ugu xisaabtan fashuluba hadii kala ka dhicaan ku leeyahay xilkan kursigan 3 sano ku wada lagu ma waarayo adiga ayaa hadhow iscanaanan doona ayaan ku leeyahay adiga ayaa iscanaanan doona
waa ku salaamayaa bulshada Soomaaliyeed meel ay joogto geeska Afrika aan leeyahay waa mahadsantihiin Somaliland aad baan u salaamayaa dhalinyarada meel ay joogtaba iyo ummadda Soomaaliyeed wixii afka ku hadla waan salaamayaa assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh waa injineer Deregaado inta mar labaad kulmi doono waxaan idinkaga tegayaa assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh